baraha bulshada ayaa lagu soo bandhigay muuqaalo cajiiba dagaaladii lagula jiray kooxda argagixisada ee al-shabaab ee soo weerartay deegaanka Soomaalida. sawirrada baraha bulshada lagu faafiyay waxaa ka mid ah askarigan oo lagu magacaabo Cabdifataax Yare kadib markii jiida hore uu ka galay difaacidda deegaanka. kadib markii sawirradiisa lagu faafiyay baraha bulshada, gabadhan oo lagu magacaabo Muuna kuna nool magaalada Bambaas ee deegaanka Soomaalida ayaa waxay sheegtay in wiilkan ay calmatay, waxayna sheegtay inay ku dooratay geesinimada uu muujiyay muddadii uu dagaalku ka socday gobolka Afdheer. Muuna oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay geesinimada uu muujiyay, sidoo kalena gabdhaha Soomaalida looga baahan yahay inay ku daydaan. baraha bulshada waxaa lagu faafiyay sawirro badan oo muujinaya sida ciidanka xoogga gaarka ee dawlad deegaanka Soomaalidu ay guusho weyn uga soo hoyiyeen weerarkii kooxda argagixisada ee al-shabaab ay ku soo qaaday deegaanka Soomaalida, kaasi oo muddo gaaban gudaheed dhammaanba lagaga sifeeyay goobihii ay soo galeen, iyagoo sidoo kale loogu geystay jab xooggan. waxyaabaha cajiibka ah ee taariikhda galay waxaa ka mid ah in shacabka Soomaalida aysan u kala hadhin sidii looga hortagi lahaa kooxda argagixisada guud ahaan 390 degmo ee deegaanka. bulshada ku nool oo si iskooda isu abaabulay ayaa ciidanka deegaanka ee xoogga gaarka u muujiyay garab istaag xooggan. taasi waxay sababtay in muddo kooban lagaga guulaysto kooxahan oo isu soo abaabulay. kaliya ma aha Muuna oo kale ee waxaa jira gabdho kale oo lagu faafiyay baraha bulshada kuwaasi oo sheegay inay guursanayaan ciidanka xoogga gaarka oo muujiyay taariikh aan la ilaaweynin. waxyaabaha kale ee cajiibka waxaa ka mid ah in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mr. Xamza uu ka hadlay sida xoogga leh ee shacabka deegaanku ay isu garab istaageen ciidanka, sidoo kalena ay isugu duuban yihiin. taasi waxay muujinaysaa dhiirigelin xooggan oo loo muujiyay ciidanka xoogga gaarka ee deegaanka. guud ahaan mas'uuliyiinta shacabka ee ciidanka oo iskaashanaya waxay guulo lama ilaawaan ka gaadheen kooxda argagixisada ee al-shabaab. haddaba dhacdada Cabdiyare iyo Muuna waxay ka mid yihiin dhacdooyinka cajiibka ee ka dhacay deegaanka muddada uu dagaalku socday, taasi oo muujinaysa sida ciidanka xoogga gaarka ee dawlad deegaanka Soomaalida ay shacabka deegaanka u garab istaageen. Cabdifataax Yare oo soo hadlay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu aqbalay codsigii uga yimid gabadha ku nool magaalada Bambaas ee Muuna, sidoo kalena uu ku faraxsan yahay. dhammaan dadka baraha bulshada isticmaala ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aanka geesinimada leh ee ay qaadatay Muuna.